ogeysiis waxaa dhammaan la ogeysiinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka kala duwan ee dalka Koonfur Afrika in la gaaray xilligii la qaban jiray kulan diimeedkii sanadlaha oo lagu casuumi jiray culimada Soomaaliyeed oo ka kala imaanaya wadamada kala duwan ee caalamka. sanadkan waxaa lagu casuumay oo mu'tamar diimeedkan ka soo qayb galaya mashaayikhda kala ah Sheikh محمود شيخ محمد شبل شيخ دكتور علي محمد صالح شيخ دكتور محمود عبد الرحمن هوري شيخ عبد الناصر عثمان محمود شيخ سعيد الراجي شيخ عبد الله عبدي إبراهيم iyo Sheikh Dr. Ahmed Mahmoud Ahmed Yare waxa uu kulanka ka furmayaa magaalada Johannesburg 24 bishan maalin Arbaca salaada casir kadib waxaana uu socon doonaa ilaa 29 bisha December ee isla sanadkan ayadoo lagu qabanayo magaalooyinka gobolka Gauteng. haddaba sidoo kale magaalada Cape Town waxa uu ka furmayaa taariikhdu marka ay ku beegan tahay 30 December ilaa 2 bisha January ee sanadka 2015 gobolka Eastern Cape waxa uu ka furmayaa isla 2 bisha January sanadda 2015 waxaana socon doonaa ilaa 4 bisha January halku dhiga kulanka ee sanadkan waa inna diina inda Allahi al-Islam.